بسم الله الرحمن الرحيم warbixinteena maanta ayaan waxaan diiradda ku saaraynaa xeeladaha la yaabka leh ee Iiraan ku iibsanayso shidaalkeeda waliba sicir waali ah. Maxaad kala socotaa qorshaha saddex geesoodka ah ee ka dhaxeeya Iiraan, Ruushka iyo China? Sidee ayay Iiraan u maalgashanaysaa dagaalka si ay u sii wado dhabar adeegeeda difaac? Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xasaasi ah xiisana leh aynu warbixintani ku lafaguri doonaa maanta. Haddaba aynu ku bilowno. Iiraan oo shidaalkeeda ku iibinaysa sicir aad qaali u ah iyada oo u xiran yahay marinka Hormuz oo ay ka xirtay dhammaan intii isticmaali jirtay oo dhan marka laga reebo xulafadeeda. Maxayse tahay sirta ka dambaysa adalada digitalka ah ee China ay siisay maraakiibta Iiraan si ay uga badaan beegsiga Israa'iil iyo Mareykanka? Caalamka ayaa waxa uu daaha ka rogayaa xeeladaha cajiibka ah ee ay adeegsanayso Iiraan iyada oo aad uga faa'iideysanayso fawdada jirta, maadaama uu dagaalka uu sababay in qiimaha shidaalka oo cirka galo gaarayna heer waali ah. Dowladaha mandiqadana ay badankoodu joojiyeen soo saarka shidaalka. Maraakiibta Iiraan waxay ku qulqulayaan Shiinaha si fudud waliba iyadoo adeegsanayso hanaan istiraatiijiyadeed oo la yaab leh. Wadamada Khaliijka waxay ka xirtay marinka Hormuz si qiimaha shidaalka cirka u aado, iyadana maraakiibteeda ay ku qulqulayaan Shiinaha iyaga oo wada shidaal si ay caalamka ugu iibiso qiimo waali ah oo gaaraya halkii barmiil $120. Xoolaha ka soo galaana ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirto Mareykanka iyo Israa'iil. Marka la soo koobo, Iiraan waxay maalgashanaysaa dagaalka iyada oo faa'iido badan ku qabta sii socoshada dagaalka iyo waliba xirnaanshaha marinka Hormuz. Haddaba maxaad kala socotaa qorshaha saddex geesoodka ah ee ka dhaxeeya Iiraan, Ruushka iyo China? China waa indhaha aan hurdin, waxayna dhabar jabisay rajooyinka Washington si uu China cadaadis u saaro Iiraan oo ku saabsan furidda marinka Hormuz. Shiinahana iskama aamusine waxa uu gurmad macluumaad basaasnimo ah u fidiyay Tehraan, waxayna u furtay nidaamka loo yaqaano Beidwa oo ah beddelka GPS. Nidaamkan ayaa Iiraan waxa uu ka yeelay inay adeegsato waxa loo yaqaano dark fleet ama maraakiibta shabaxa ah. Waa maraakiib xira nidaamka lagula socdo, waxayna beddelayaan magaca ku qoran ama magac kale ay ku buufinayaan iyada oo la kaashanayo tiknoolajiyad ay leedahay China. Arrintan ay waxay ka yeeshay Israa'iil inay weerarto iyada oo aad u xanaaqsan oo garan weydo waxa ay samayso, oo markii dambe ay beegsatay haamaha kaydka shidaalka ee Iiraan kadib markii ay ku guuldareysatay la socodka maraakiibta Iiraan ee shidaalka qaadaya. Iiraan ma isku difaacayso rasaasteeda gantaalada ee waxay isku difaacaysaa xoolaha ka soo laabta shidaalka ay hadda dhoofiso oo sicirkiisuna cirka isku shareeray. Iiraan xoolaha hadda inta uu dagaalka socdo ka soo gelayo ayaa aad uga badan intii uusan dagaalka bilaaban. Caqabadii haysatay ay waxay u beddeshay fursad. Iiraan waxay adeegsatay xeelad aan caadi ahayn. Dagaalka oo dhaqaale aan caadi ahayn laga samaynayo, cunaqabataynta saaran iyo duqeymaha Israa'iil iyo Mareykanka kaliya waxay noqdeen canshuur kor loo hayo oo degdeg loogu bixinayo faa'iidada ka soo xaroota shidaalka ceyriinka ah ee qiimihiisu cirka galay. Mareykanka ayaa waxa uu ku dhacay god uusan ka soo bixi karin, waxaana loo dhigay dabin qaanuuni ah. Washington waxa ay dhex taagan tahay mowqif wejigabax ah. Ma awoodo inay weerarto maraakiibta shidaalka ee Iiraan ee jooga marinbiyoodka Hormuz, sababtoo ah waxay ku andacoonaysaa in maraakiibta halkaasi u joogaan ilaalo. Micnaha xorriyadda ganacsiga iyo badda ayay ilaalinayaan. Haddii uu Mareykanka isku dayo inuu beegsado maraakiibta shidaalka Iiraan, ayaa Mareykanka wuxuu isku rogayaa burcadbadeed caalami ah. Iiraan waxay ku gabanaysaa marmarsiyadan qaanuuniga ah si ay u xirto marinka Hormuz si aan ka laabasho lahayn caalamka oo dhan hortiisa weligiina aan la furin. Gabagabada, waxyaabaha inooga muuqdo marinka Hormuz ayaa waxa uu dib u habeen u yahay dhaqaalaha dagaalka caalamka. Iiraan, Ruushka iyo China waxa ay sameeyeen furin istiraatiiji ah iyagoo uga faa'iideysanaya dhigbaxa Mareykanka dhaqaale ahaan iyo military ahaan, iyada oo caalamkana uu sugayo hoos u dhac ku yimaada sicirka shidaalka oo cirka galay. Iiraan waxay u beddeshay marinbiyoodka Hormuz hub dhaqaale oo daran halkii uu ka ahaan lahaa marin maraakiib oo ay maamulayaan awoodaha dhanka bariga. Haddaba ma kula tahay in Washington ay ku guuleysanayso jabinta isbahaysigan shidaal oo saddex geesoodka ah isaga oo cadaadinaya China,
ama Beijing ayaa go'aansatay dhab ahaan in casrigii Maraykanka uu ku dhammaaday albaabka Iiraan? Nala wadaag fikirkaaga. Inqilaabka Khaliijka ee ka dhanka ah Maraykanka. Warbixin muhiim ah oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxaa daaha ay ka rogtay in muuqaal nooc kale ah ay ka bixisay dagaalka ka soconaya mandiqada Bariga Dhexe. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa waxay hogaaminayeen dagaalka lagula jiro Iiraan. Haddana ilo wareedyo Khaliijka ah ayaa waxay tilmaamayaan in dowladaha Khaliijka ay bixinayaan qiimaha ugu badan ee amniga iyo dhaqaalaha. Ilo gobolka ah ayaa waxay sheegeen in caasimadaha wadamada Khaliijka laga dareemayo walwal badan oo ku aadan xaaladaha isa soo taraya, waayo waxaa lugaha loo geliyey dagaal aysan bilaabin haddana aysan taageersanayn. Weerarada Iiraan ayaa waxay soo taabteen eeraboorada, dekedaha, xarumaha shidaalka, saldhigyada ciidan, ilaa ay soo taabteen hoteelada iyo xarumaha ganacsi. Taasi micnaheedu ayaa waxa uu yahay in dhaqaalaha mandiqada gebi ahaanba uu noqday qayb ka mid ah dagaalka. Madaxa xarunta siyaasadda ee Imaaraadka, Ibtisam Al-Kadbi, ayaa waxay si waadax ah u sheegtay iyada oo u waramaysa Reuters, dagaalkeena ma aha, mana doonaynin, balse qiimihiisa ayaa annaga bixinaynaa amni ahaan iyo dhaqaale ahaan. Dagaalka ma duqeynayo keliya amniga ee waxa uu bilaabay inuu duqeeyo sidoo kale dhaqaalaha caalamka. Waxaa la xiray marinbiyoodka Hormuz oo ay mari jireen maraakiibta sida shidaalka, sida naftada iyo gaaska. Waxaa la joojiyey in ka badan 40,000 oo safaro diyaaradeed ah. Waxaa qalqal galay suuqyada caalamka, waxaana dib u dhac ku yimi kalsoonida maalgashi ee Khaliijka. Istaagidda safarada ayaa waxa uu noqday midkii ugu weynaa uguna darnaa tan iyo markii uu socday xanuunkii COVID-19. Ha yeeshee farqiga ugu weyn ee warbixinta ay baahisay Reuters ayaa waxa uu yahay inuu isbeddel weyn uu ku yimi xiriirka ka dhexeeya Washington iyo dowladaha Khaliijka. Heshiiska ay wada galeen Maraykanka iyo dowladaha Khaliijka ayaa waxa uu salka ku hayay in lagu kala bedelanayay tamar iyo maal, iyagana ay helaan ilaalada Maraykanka. Hase yeeshee dagaalkani ayaa waxa uu noqday, sida ay sheegeen khubarada dagaalada taxliilisa, wuxuu aad u gilgilay xiriirka Maraykanka iyo dowladaha Khaliijka si dhammaystiran. Khabiir ku takhasusay arrimaha Bariga Dhexe, Fawzaa Jarjis, oo ka tirsan kuliyadda dhaqaalaha London, ayaa waxa uu tilmaamay in dowladaha Khaliijka waxay bilaabeen inay xaqiiqsadaan hadda inaysan awood u lahayn inay ku tiirsanaadaan sideedaba dalladda amniga Maraykanka. Sidaas darteed, mandiqada ayaa waxaa ka bilowday casri cusub, inay samaystaan isbahaysiyo kala duwan, inay dib uga fikiraan isku dheelitirnaanta amniga, iyo weliba inay suuragal tahay in la raadiyo isbahaysiyo goboleed oo cusub xitaa ay ku jirto Iiraan. Dagaalka haatan ka socda Bariga Dhexe maaha keliya iska hor imaad u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil, ee waa dhulgariir istiraatiiji ah oo dib u habeynaya xiriirka Maraykanka iyo dowladaha Khaliijka. Su'aasha inta badan la isweydiinayo ayaa waxay tahay, gaar ahaan caasimadaha dowladaha Khaliijka, dagaalkani in la galo dhab ahaan daruuri miyuu ahaa, mise Khaliijka ayaa is arkay si lama filaan ah inuu dhexda u taagan yahay kaasi oo aan iyaga dooran. Dhanka kale, Ruushka ayaa waxa uu sheegay in saldhigyada Maraykanka ee Khaliijka uu yahay hadaf sharci ah. Dowladda Ruushka ayaa waxay jebisay haybadda saldhigyada Maraykanka uu ku leeyahay Khaliijka, wuxuuna intaasi ku daray in Iiraan ay beegsato saldhigyada Maraykanka ee ku yaala dowladaha Khaliijka uu yahay hadafyo sharci u ah Iiraan inay beegsato. Moskowna maanta waxay dib u riixday qaraar uu soo saaray Golaha Ammaanka, una isticmaashay diidmada qayaxan ee vetoga, kaasi oo ka soo shaqaysay dowladda Bahrain lidna ku ahaa Iiraan. Wakiilka Golaha Amniga ee dowladda Ruushka ayaa waxa uu qarxiyay qunbulada, kaasi oo ku tilmaamay saldhigyada xarumaha kaabayaasha Maraykanka ee Khaliijka uu yahay hadaf sharci ah, Iiraanna ay beegsan karto. Qaraarka Golaha Ammaankana waxa uu ku tilmaamay mid aan shaqaynaynin oo hal dhinac ka raran. Hadal uu sheegay wakiilka Ruushka ee Golaha Ammaanka ayaa si aan leexleexad lahayn u istaagay mowqifkii ugu khatarta badnaa ee diblomaasiyad ee ay mandiqada waajahayso. Moscow kuma ekaan inay difaacdo Iiraan keliya, ee waxay dagaalka u soo rartay qalbiga saldhigyada Maraykanka ee Khaliijka ku leeyahay. Wuxuuna iclaamiyey inuu dhammaaday sanadkii xasaanadda ee galbeedka ee lagu gabanayay dalladda caalamiga ah. Ruushka waxay garafka ku dhufatay mashruuca qaraar ee Golaha Ammaanka ee liddiga ku ahaa Tehraan. Ruushka inuu sharciyeeyo beegsiga saldhigyada Maraykanka ee Khaliijka waxa uu ku sababeeyay inay Iiraan xaq u leedahay inay isdifaacdo.
aqalka Kremlinka ee looga taliyo Moscow ayaa baaq cagaaran siiyey in la beegsado Centcom iyo raxanta maraakiib ee loo yaqaano Fifth Fleet. midan ayaa mandiqada waxay ka yeelaysaa inay ka baxayso xaaladii deganaan ee Mareykanka ku joogay, loona bedelayo meel la isku farasaaro. ujeedkuna uu yahay awoodda Mareykanka laga tirtiro dawladaha Khaliijka. Ruushka ayaa wuxuu si weyn u cambaareeyay qaraarkii ay soo diyaarisay Bahrain ee ku saabsanaa Bariga Dhexe, wuxuuna ku tilmaamay mid aan isku dheelitirnayn. Moscow waxay shuruud uga dhigtay in lagu soo diro qaraarka in lagu cambaareeyo iyadana weerarka gardarada ah ee markaasi lagu ekeeyay Iiraan, kaasina uu yahay sharti asaasi ah. haddii kale qaraarkani kaliya waxa uu noqonayaa mid hal dhan ka raran, waana hor istaagaynaa ayuu yiri isku day kasta oo markaasi ay sameeyaan reer galbeedka oo cunaqabateen lagu saarayo ama lagu cambaaraynayo Iiraan inuu yahay mid hal dhinac ka raran. golaha ammaanka haddii la keenana waan hor istaagaynaa ayuu yiri. Ruushka go'aankiisa waa waadixiyey. Iiraan waa shariigeeda xasaasiga ah, suuragal ma aha inay cidlo uga tagto. hadalka wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ayaa fariin digniin ah oo waadax ah u diray dawladaha mandiqada oo ilaalinaya saldhigyada Mareykanka. dawladaha Khaliijkana waxay ka yeelaysaa in maalin walba ay soo booqdaan diyaaradaha iswada iyo weliba gantaalada Iiraan iyadoo caalamkana uu daawanayo. maxay kula tahay hadalkani ka soo yeeray Ruushka? ma waxa uu matalayaa in Ruushka siinayo Iiraan ilaalo xaqiiqi ah oo markaasi looga hortagayo weerar duqeymaha uu fulin rabo Mareykanka, mise waxay ka tahay ismuujin oo kor ugu qaadayo saqafka wada hadalka Ukraine? nala wadaag ra'yigaaga.